heshiis laga gaadhin ayaan iyadana qaadaa dhigi doonaa hadduu alaymo. soo dhawaada muuqaalka like saara, aragtidiina noogu reeba qaybta commentiga. aynu ku bilownee 16 maalmood oo wasiirka amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya mudane Fartaag uu ku sugnaa magaalada Garbaharey ee xarunta gobolka Gado. waxaa gobi ahaanba dowladda federaalka u suurta gashay inay gobolka Gado ay hooskayso magaalada Muqdisho isla markaana ay ka faramaroojiso Axmed Madoobe. Fartaag Garbaharey wax kale uma joogin, wuxuu u joogay in Axmed Madoobe laga soo faramaroojiyo gobolka Gado oo deegaan ahaan isagu uu ka soo jeedo. 16 maalmood ka badan ayuu Garbaharey iyo gobolka Gado uu ku sugan yahay oo gobolka Gado uusan dhinac uga bixin. dad badani waxay is weydiinayeen war wasiirka amnigu meelo badan oo amni darro ay ka jirto ayaaba looga baahnaaye gobolka Gado oo amni ah muxuu ka dhaxayaa? wuxuu ka dhaxayay in maamulka fadhiidka magaalada Kismaayo aan dhinacna u dhaafaynin ee 14 sano Kismaayo afmadow kaliya ka taliya inta u dhaxaysa xataa aan qabanina kooxda khawaarijta ay haysato ummadda dhibaatada badan u geystay sidii gobolka Gado maadaama isagu deegaan ahaan uu ka soo jeedo uu uga soo faramaroojin lahaa dowladda federaalkana uu u hooskeeni lahaa ku qadaa ku dhargaa ku baahdaa wax ka hela waxba kama helina dowladda federaalka inuu hoosgeeyo Fartaag u joogay horta Garbaharey. hadal nima runta ka sheegin been baa u kaydsan. anu dowladda federaalka horta waxbay ka helayaan dhihi maayo oo hadda damu jadiid xisbiga damu jadiid wax qabadkoodu waa iska yahay markan xaqiiqada ka hadal la weey waxbay ka helayaan dhihi maayo waxbay ka waayaan dhihi maayo waa dowladda federaalka. Axmed Madoobe ku xumeyntiisa inay wax u helaan baa laga yaabaa shacabka gobolka Gado ay wax ku helaan oo maanta baada xoogaaba waxba soo gaaray. Axmed Madoobe si hoos joogana anigu dhihi maayo aqli lagu yiraahdo Axmed Madoobe si hoos jooga 14 sano oo wax qabad la'aan oo waxba la qabanin oo dhibaato mooyeen wax laga faa'iiday jirin haddana la si hoos joogana iyadana dhihi maayo. waxaana u dhahaynaa Axmed Madoobe 14 sano deegaankan maamulayay doolow aan dhahnay gobolka Gado meel kamida weligii ma imaan 14 sano Madoobe uu joogo weligii muusan ibaanin gobolka Gado. marka ana madaxweyne waa Kismaayona soo dhaaf maayo markan ka duulayana Kismaayo toos baan uga duulayo dalka dibadiisaan aadaya maxay u taraysaa marka waxba oo qabanayso iyadoo shacabku marka ay meelo badan ay wax bal masiirkooda ay ka tashadaan oo meelun ay wax u doontaan ayaa dhaanta in sida hadda lagu jiro lagu sii jiro. si kastaba dowladda federaalku isdidooyinkii siyaasadeed ee Axmed Madoobe iyo Xasan bay ka faa'iideysatay gobolka Gado ayayna gacanta kaga dhigtay Madoobe kadib guuldaradii ka soo gaadhay deegaanka Raaskambooni oo ka tirsan degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose. dowladdu markii halka laga gacan roonaaday oo Axmed Madoobe uu gabi ahaanba la wareegay caradii xaggaas ka soo gaadhay wixii oo dhanba gobolka Gado kula dhacday qab xagga loo booday Maxamuud Sayid baa imaaday doolow buu imaaday xaggu kaga deeyay ciidanka Itoobiya soo qaatay Itoobiyana waa la leeshay waxa la yiri waxa naga rabtaa soo badmayna badayna siinayna Maxamuud Sayid iyo kuwan iyo Axmed Madoobe haba kaarkiisa waxa weeye u tuura kaarla waxa weeye haba kaarkooda tuura wax wada shaqeynaa hala yeelanino waayahay bay tiri Itoobiya xeryahanada kama soo baxaynay raali gelin bay ka bixiyeen weerarkii ciidanka dowladda ay kula galeen magaalada doolow ee gobolka Gado. dowladdu marka 16 maalmood ee ugu dambeeyay Fartaag uu ku sugnaa Garbaharey iyo gudaha gobolka Gado uu ku sugnaa hawl badan buu ka qabsaday wixii loo soo xilsaartay filla Soomaaliya ay u soo xilsaaratay wax badan buu ka qabtay. Madoobe gobolka Gado waa macsalaameeyeen gabi ahaanba meelihii Axmed Madoobe uu kala shaqeynayay waxa kamid ahaa degmada doolow iyo Baardheere labadaas buu kala shaqeynayay Axmed Madoobe labadiiba gacanta lagaga dhigay saaxiibadii uu ku lahaana gabi ahaanba waa la kala furfuray wax loo gacan haadiyo oo laga qaato iyo wax loo tuuro iyo waxa weeye la caydiyo ayay dowladda federaalku ka dhigtay. gobolka Gado marka guud ahaanba waxa uu galay gacanta filla Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamse gacantooda ayuu galay gobolkii Gado halkaas buu ku arooray. maanta dowladda federaalku degmada Garbaharey diyaarado gargaar wada ayay ka soo dejisay oo run ahaantii la leeyahay waxa lagu garab istaagayaa shacabka tabaalaysan ee abaartu ay saamaysay ee gobolka Gado. diyaaradaha laga soo dejiyo kuwa kalena waa soo socdaan. shacabka dowladda federaalku marka waa sasabashay ku wadaa sasabasho abaarahan baa la garab istaagi raashiba la qayb bali beled xawiya doolowna waa loo soo wadaa oo hadda way u soo socotaa diyaaradahaasi bari ama bari dambe ka digi doonaan sida aan xogta ku helay.
baardheere ciidama laga dejiyey ceelwaaq ciidama laga dejiyey beled xawana ciidamo tiro badan baa laga dejiyey dowladdu waxay wada daadgurayn ciidamadii halkaa lagu soo fashiliyey raaskaamboni ayaa gobolka gado lagu soo daadguraynaya lama garanayo muddadoodii baaba hadda sii dhammaanayse inay dagaal qaadi doonaan oo jubbada dhexe lagu xorayn doono iyo in gobolka gado oo la hoos geynayo muqdisho hoos jooga keliya lagu ilaalinayo lama garanayo balse dowladdu ciidamo ayay kusoo daadguraynaysaa gobolka gado si kastaba xaaladda gobolka gado ee siyaasadeed oo muddo badan cakirnayd khilaaf badan oo soo jiitamayna axmed madoobe uu kala dhexeeyey meelo yarna muddadii hadda sanadiyadii ugu dambeeyey kala shaqaynhayay gebi ahaanba gacanta dowladda federaalka soomaaliyeed ayuu galay dowladda federaalka aadeen wax ka helaya ku qadaya ku dhergaaba halkaas iyo villa soomaaliya ayay u weecdeen gobolkii gado axmed madoobe maxay uga dhigan tahay axmed madoobe waxay uga dhigan tahay dhabarjab siyaasadeed oo aad iyo aad u weyn sababtoo ah saami ahaan markii la fiiriyo horta jubbaland waxay ka kooban tahay 3 gobol jubbadii dhexe argagixiisa haysata oo hal degmo xataa lagama hayo jubbadii hoosena 2 degmo oo afmadow iyo meesha la yidhaahdo kismaayo ayuu axmed madoobe ka maamulanayay gobolka gada yaa xor ahaayoo waxa weeye degmooyinkiisoo dhan gacanta ku jiray gobolkii gada haddii lagala wareegay micnaheedu waxay tahay marka maamulka jubbaland waa 2 degmo keliya waa afmadow iyo kismaayo 2daa degmo keliya ayaa axmed madoobe hadda gacantiisa ku soo hadhay marka waa dhabarjab siyaasadeed ceeb weyn bay ku tahay 14 sano meelaad maamulaysay in 2 degmo ay kugu soo hadho taasi waa axmed madoobe dowladda federaalku maxay uga dhigan tahay waxay uga dhigan tahay hadafkooda siyaasadeed ee doorasho qof iyo cod ayay ka hirgashanayaan gobolka gado haddii jubbaland aysan meel la dowladda federaalku aysan ka maamulin doorasho qof iyo cod ah ay wataan uma hirgelayo hadhowta waxaa la dhihi xaggee jubbaland xaggeed ka geysteen marka iyagu qorshahooda siyaasadeed ee doorasho qof iyo cod ayay gobolka gado ku maaraysanayaan marka guul siyaasadeed oo weyn ayay u tahay waxaa kaloo guul ay ugu tahay ceebtii ka soo gaadhay raaskamboni ayay iskaga dhaqeenoo gobolkii gaday gacanta ku dhigeen oo haddanana ay leeyihiin qorshaha anagii marka horeba aan jubbaland ka lahayn gobolka gadaan ka hirgashanaynaa taasna waa dowladda federaalka soomaaliya shacabku maxay faa'iido ugu jirta shacabku jahwareer siyaasadeed bay ku jiraan muddo dheerna way ku soo jireen haddana dee isku xumayntan hadda axmed madoobe iyo xasan xoogaa faa'iidooyina ugu jiro oo waxbaa gaadhgaari doona qaarka qabqablayaasha iyo siyaasiyiintana xoogaa lacagaa gaadhi dadka shacabkana xoogaa raashinaa loo daadini oo lagu soo dumanayo buundooyinka jabanna waa suurtagal in la hagaajiyo iyadoo lagu xubaynayo axmed madoobe oo lagu sasabanayo shacabka marka sasabashadaas ayaa laga yaabaa inay xoogaa ku boobaan xoogaa uu ku soo gaadho taasna waa dhanka shacabka dhinaca kaleeto waxaa maalmihii lasoo dhaafay aan dhahnay weliba shalay ku gaadhay magaalada muqdisho wafdi ka socday dhinaca etoobiya oo u socday sidii dowladda federaalka ay ugala hadli lahaayeen ka mid noqoshada ciidamada etoobiya inay ka mid noqdaan howlgalka cusub ee nabad ilaalinta midowda africa ee soomaaliya ka bilaaban doono asbuucyada soo socda ama bilahan soo socdaba si toosa u bilaabi doono walow hadda naftirkeedaba ay bilowdeen oo qorshahooda hadda u bilowday laakiin si rasmiya u bilaaban doono howlgalka dowladda federaalka horey uga reebtay etoobiya inaysan ka mid noqonin arrimo la xidhiidha xiisadii soomaaliya iyo etoobiya udhexaysay ee kasoo bilaabatay 1dii bishii 1 ee 2024 heshiiskii beenaadkii ay wada galeen abiy axmed iyo muuse biixi waa madaxweynaha maamulka somalilan heshiiskaasi marka waa arrintaas xiisada soo socotay baa sabab waxay u noqotay marka etoobiya in laga reebo howlgalka golaha ammaanka qaramada midoobay maalin dhaweyd markii ergadii soomaaliya ka socotay ay shaaciyeen wadamada ka mid noqonaya etoobiya qayb kama ahayd sidaa awgeed bay marka etoobiya yay saartay culays xoogan saartay dhinaca dowladda federaalka sidii loogu soo dari lahaa haddaba kulankii ka dhacay magaalada muqdisho ee ay yeesheen madaxda dowladda federaalka iyo sidoo kale wafdigii ka socday dhinaca etoobiya waxaa lagu gorfeeyey oo etoobiya ay soo dhigeen dalabka ah codsi in lagu soo daro ciidankan howlgalka cusub ee unisom ee nabad ilaalinta midowda africa dowladda federaalku dalab bay hordhigeen waxay hordhigeen waa laynagu soo darayahee ciidamada gobolka gada jooga iyo ciidanka jooga waxa weeye koonfur galbeed labadaba meesha ka saara ciidamo ha noqdaan midowda africa ka tirsan ha noqdaan ciidankiina inaga jooga ciidanka kale oo dhan meesha ka saara saldhigyada la geynayo ciidankaas qaybta ka noqonayana annagaa inii jidaynayno oo inii astaynayno ina dhahayna halkaa iyo halkaa iyo halkaa ciidankiinu ha ka howlgalaan
laakiin ciidamada tirada badan ee koonfur galbeed iyo gobolka gado aad keenteen ee qaarna waxa weeye dawaanka shareen qaarna iska soo dhoobteen waa inaad marka koowaad horta aad ka saartaan baa layidhi waftiga Ethiopia ka socday marka waxa la tashiyaan celinaynaa ra'iisul wasaarahan ku noqonaynaa annaga go'aan soo saaray inta markaad samaysaan waa layna siin baa layidhi qayb baad ka noqonaysaan mee ciidanka ugu badan ee wadanka u ciidan badan ee ciidan soo geliya Soomaaliya aad noqonaysaan baa layidhi wixii inta ka soo haramaya baa layidhi marka dalabka culus baa la hordhigay oo Ethiopia waxa weeye mowqifkeedii rabitaan waxay rabtay lagaga horgeeyay taasna waa qodob